aabba maxamed cabdi xaashi loona garan og yahay diini waa aabba muddo dheer ahaa shaqaale dawladeed 1975 ayuu bilaabay shaqada dawladda hoose magaalada Boorama. aabba maxamed cabdi xaashi diini oo maanta aan kula kulmay mid ka mid ah hoteelada magaalada Boorama ayaa waxa uu sheegay in muddo 7 bilood wax mushaar uusan qaadan joojinta mushaarka iyo waxa uu sheegay inay tahay cunsuriyadu kala kulmay meeyirka degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi maadaama dhibane maxamed xaashi cabdi diini uu deegaan ahaan uusan ka soo jeedin degmada Boorama wax adduunya oo hantii lagu leeyahay konton iyo sano shaqeynay waxa way ma jirto shan buug baan hayay shantii buugna waxaan u dhigay arday yawdi ilaa hadda wuxuu yiraahdaa buugtii markii ninka hadda waa buugtii looga sheegay hanuunti waxa way wuxuu ugu sameeyay cusuriyad waxaan reeboon uga baran ka udud iyo ninkan waa laba nooc Soomaaliyeed kaasna waxa way mushaarkii kordhiyay umada waxa way shaqaaleeyanaha maanta xulka ka degan aan shaqada laga fuusiyay xilkii laga qaad shaqada qaybta cashuuraha gurtana ma ilaa aqoon reeboorba afdal ma jirto ilaa sayra ilaa loo haya waxa way uu cusriyay mushaarkii baan ku leeyahay imka bishii lixaad baa ii socota oo mushaar aan qaadan sababta inta jiif waa bukay waxa way ima soo dul istaagin shaqaalihiina waan ahay war maxaa qabtaa ima oran wuu xiray shanta buug wuu haystay shantii buugna waan u keenay percentage aan ku lahaa 30% baan ku lahaa ima siin wuu haystaa mushaarkii wuu haystaa waxa way wuxuu baday ciili caro colaad uma qabo dadka Soomaaliyeed milkii awdal aan ahay Boorama deganahay guriga ku leeyahay ninkaas wuxuu igu sameeyay waxaan arag la maqbay ugu sameeyay aabihii oo meeyda iyo abtida noo dhibin aan wax ka asaarin oo shaqa lacagtooda isku aasay aabihii waxa way wuu dilay wuu karaamay waayay bini'aadamna iga soo qaadi waayay waxa ummadda islaamka lagu sameeyay ilaa yoom hada waxa uu sheegaya dawladda Soomaaliland in cusriyay waxa way 550 qof oo shaqaalaha shaqeeya anu beega dhaxsaaray oo maraxaan baatay leey waa ruwaay maxamed maraxaan ma baqay leeyada laakiin afdal bana waa deganahay wadaatay gabar deegaanka ka qaba waxa way uu cusriyay waxaan ka cabanaya waxa way intaas oo mushaarkeygii oo waayay mushaarkeygii oo waayay percentage aan ku lahaa lacagta leeysiin waa la cusriyay ciidi carar la jifa waxa way wiligeena waxa way ninka shaqaalaha ugu horeeyana 1975 baan shaqada ka bilaabay 1975 ka bilaabay shaqada waxaan ka shaqeysay English officer banka waxaan ka shaqeeyay Hargeysa luqayanka Talyaaniga muslimka wajaalanka waxa way inta soo shaqeeyay anti 75 baan shaqada bilaab ilaa yoom hada waa shaqeeya waxaan ku sheegay la qaadan daro intaasoo kaliya ma ahayn sidoo kale aabba cabdi xaashi diini waa aabba xanuunsanaya sidoo kalena waxa uu sheegay in muddo 20 cisho uu ku xidhnaa saldhigga dhexe magaalada Boorama xadhigiisa ayuu igu sheegay inuu ka dambeeyay meeyirka degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi magdabo uu dilay anoo shaqeynaya shaqada iga joojiyay xariga igu saldhigga booliska waa la xiray dinta laga xidhnaa waa taashan ku xidhan saldhigga booliska warshada bugta isii oo xisaabiye inuu soo waajib saldhigga gurti waxa ku sheegaya waxa way arxan male markii dambe ayaa ku soo daayay mar haddii isagu waxa soo daayay jaamac la yiraahdo jaamac Yuusuf la yiraahdo iyaga soo daayay saldhigga booliska Cabdiqaadir iyo Cabdiwahaab oo kamid ah dhalinyarada magaalada Boorama oo iyaguna goobtaasi joogay ayaa waxay si dareen leh uga hadleen dhibaatada haysata aabahan waxaanay ka dhawaajiyeen wuxuu noo sheegay maxamed cabdi xaashi inuu ka soo jeedo dhalasho ahaan degmada Aabudwa laakiin uu Boorama inta oo dhan ku barbaaray qof Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaaliyeed ah dawladda hoosena ka hawlgeliyay muddada inta 75 ilaa maanta
ahna nin reer Boorama oo rasmi ku ah oo degan oo xaaskiisa iyo carruurtiisuba reer Boorama yihiin waxa nasiib darra halkan isagoo ku ooyay oo ilintu ka socotaan kula kulanay wuxuu noo sheegay inuu 7 bilood mishaarkiisii dawladda hoose una siin maayo waxa soocay oo midabta kooray waa nasiib darro in degmo la hormariyo sugaysan raawda loo yahay Boorama de duqeydii ba soo soo ilmaynaysa ninka duqeydii ka ilmaynayso oo malayn ma inuu degmo hor sidoo noo sheegay waxa hayb soocay oo midabta kooray oo 9 shaqaalaha ka dhax saaray kliigi maayirka hadda degmada ku soo noqday anigu maayiru ma aqoonsaniyo maayir ku sheeg baan u aqaana ninkaas hayb soocay waxaan bartan kula kulanay isagoo ooyaya oo ilmadu ka daayso anagu rajo iyo ifafaale kama qabno maayirkan waqti xaadirka waqtigiisa gabaabsiga galay waa Imraan Xuseen Aadan wararka muuqbaaya telefishanka caalamiga Star TV Boorama.